halkan waa cisbitaalka dhimirka ee Buuhoodle waxaana ku jira bukaanada qaba xanuunka dhimirka waxaana bukaanadana haatan u dabaaldegayaan ama xaflad lagu qabtay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay furitaanka cisbitaalka dhimirka ee Buuhoodle gacanta ku hayso waxa cisbitaalkan gacanta ku haya hay'adda HBA oo ka howlgasha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inta badan wax ka qabatay hawlaha caafimaadka ee deegaanadani waxaa halkan ka hadlay mas'uuliyiinta gacanta ku haya xarunta caafimaadka Buuhoodle sidoo kale waxaan wareysanay qaar ka mid ah bukaanada ku jira cisbitaalka dhimirka ee Buuhoodle oo sheegay in xaaladooda caafimaad ay aad u wanaagsan tahay waxay fariin u direen qurba joogta deegaanka Buuhoodle inay gacan libaax ka geystaan sidii halkan ugu sii jiray cisbitaalka waxaa gacanta ku haya oo maamulaha hay'adda leedahay HBA ama ururka xirfadlayaasha caafimaadka oo ka dhisan gobolladeena Sool Sanaag iyo Cayn cid kale oo daryeesha ama hay'ad ama dawlad oo macnaha wax ku bixisa ma jirto isku tashigaas bulshada reer Buuhoodle ku dhisteen markii hore cisbitaalka kiumba haddana lagu wadaa socodsiintiisa waxaa laga soo gaxay gobolka Cayn inta uu xukumo dhinaca kale hawdka oo dhan waa laga soo ka yimaadaan dadyow gobolada fogfog laga soo celiyay Garowe iyo Hargeysa iyo ka yimaadaba iyaguna lagu soo celiyay xarunta jooga kuwa dibadda ka yimi oo Mareykan iyo Ingiriiska ka yimi meelaha ay ka mid yihiin ayaguna jooga isbitaal ahaan hadda 4 ruux ayaa ku jira oo kafaalo qaadnay marka qof kasta ganacsatada qurba joogta cid alla cidii gacan ka geysan karta inay dadkeena suuqa wareegaya xanuunsan soo kafaalo qaadaan halkan la keeno markii bogsadana u danaysa raacdanahay daryeelka dadka ka jiran xanuunka madaxa halku dhigo waxa weeye daryeel dadkiisa raace dawladu jeedaan quruxdooda iyo farxadooda iyo tamaashaadka ka muuqda hadda waxa ku jira 52 qof sida uu horey gudoomiyaha cisbitaalka dhimirku horey noogu sheegay waxa ka baxay 30 qof oo ka qalin jabiyay isla markaana raacday danahooda gaarka nolol maalmeedkooda waxaan ku boorinaynaa dhammaan bulshada nadaawaysa iyo dadka jecel in ay ka qayb qaataan sidii kor loogu qaadi lahaa looguna hortagi lahaa xanuunkaas xaruntan aynu joogno xarunta dhimirka ee Buuhoodle gobolka Cayn waa xarunta kaliya aynu leenahay ee caafimaad ee gobolka Buuhoodle uu yeeshay hadda ka horna ayna lahayn ay u tagi jirnay Hargeysa iyo Burco iyo Laascaanood ay u tagi jirnay marka walaalayaal waxaynu ku boorinayaa halkan waxaa soo galay 80 qof 30 qof caafimaad ahaan ayay uga baxday isbitaalka 52 qofna way ku jirtaa caafimaadkaygu anigu aad baan u xanuunsanayay imkana dadka inay baxaan caafimaadka xafladda loogu qabtay imka xafladdan imka aan ku jirno isbitaalka qabsaday waa sanad guuradii isbitaalka imka weeyaan waxaan halkan uga mahad celinayaa dadkii isku taxalluujiyay hawshan inay sameeyaan soo ururiyay dadka walwaalan dhammaan meel kasta waa isaga keeneen aniguna waxaan ka mid ahay dadkii dhibanayaasha bukaanka ah ee meeshan la keenay hadda waxaan dareemaynaa caafimaad aad iyo aad u tiro badan waayo dee wardhafoor buu ka yaala bidhaanteeda ka aragtaan marka halkan waxaan uga mahadnaqaynaa degmada iyo gobolka iyo beesha iyo haddii allaba ku rooyo shaqaalaha jajaban loo qabtay iyo joogtaana waxaa weeyaan dee ha ogaadeen dad tabaalaysanay inuu jiro oo macnaha ha ugu sii ambakareen noogu sii ambakareen sidaa naloo daryeelay ee naloo wanaajiyey ee ay nooga muuqato in dib nolol noqdo mar noocan rabnaa iyaguna inay wixii ay tari karaan anagu hadda wax codsan mayno waxay tari karaan war dhafoor ku yeelay halka ka saan baqaan jiray Hargeysa anigu aan ku xidhnaan jiray oran maayo kaaya kaasaan ku xidhnaan jiray hasi ahaatee labadii goor marraba ma aan dareemin caafimaad hasi ahaatee markii gobolkayga laygu xidhay aad iyo aad ayaanu caafimaaday waxaana la yidhi manhal aad iyo aad bay tayadeeda iyo daaweynteeda iyo cisbitaaladeeda madaxdeeda iyo dhakhaatiirteeda ay u fiicneen waxaana dareemayaa caafimaad aad iyo aad u fiican haddaba dadka waxaan ku waaninayaa kula talinayaa gaar ahaan kuwa manhal loo keenay Buuhoodle gudaheeda ee mentalka inay keensadaan oo ay على عسونا سؤال ولا كشر ورجل فريش كعلم جسمانه ليش Buuhoodle